qofka diinta leh haddii uu gabadha jeclaado oo ay qanciso ay u wanaagsanaato wuu sii wanaajinayaa sharafteeda sharaf buu ugu sii darayaa inteeda way ka sii saramaraysaa gabadhii haddii uu naco oo ay ku xumaato oo anfici weydana ma dulminayo stagekii ay taagnayd iyo levelkeeda kama hoos marinayo ninka diinta leh waxaa jirta qiso saciid ibn musayyib taabiciga la dhihi jiray waa min culamaa'i taabiciin culimadii taabiciinta ugu waaweynaa buu ka mid yahay wuxuu dhalay baa la yidhi gabar aad u diin badan oo aad u akhlaaq badan oo wax kasta oo qurux badan jamaal xataa qurux lagu sheekaysta dadka dhan ku sheekaystaan wax walba dadka ugu sarreysa camal ah maalintii dambe sheekha asagoo jooga xalqadii darsiga uu ku akhrinayay ayaa nin ardaydiisa ka mid ah wuxuu waayay cabdullaahi ibnu wadaaca la dhihi jiray ayuu waayay nin xaas leh oo reer la weeye oo ardaydiisa ka mid ah dhowr bari buu maqnaa maalintii dambe uu yimid markaasuu wuxuu ku yidhi maxaa kugu dhacay baryaha noomaada imaanina markaasuu wuxuu yidhi xaaskii baa iga dhimatay markaasuu wuxuu yidhi maxaad u guursan weyday markaasuu wuxuu yidhi oo yaa ii guurinaya ayadoo gurigaygaba aynan oolinba 3 dirham xataa ma haysto waxay dhaheen labu haystay ama 3 wax la mida baan haystaa buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi yaa ii guurinaya anooban haysta 2 ama 3 dirham baaban haystaaba yaa ii guurinaya markaasuu wuxuu yidhi anaa kuu guurinaya markaasuu yidhi maadaa ii guurinaya suu yidhi haa gabadha la leeyahay ninkaas 2 dirham haysta oo xirowga oo miskiinka ah oo ardayga ah waan kuu guurinaya ma taqaanaan waxaa loo diiday waliid ibn cabdimalik ibn marwan waa khaliifkii muslimiinta umawiyiinta oo adduunka khilaafadii muslimiinta ugu awooda bandayd ah wiilku dhalay baa loo diiday maal iyo sharaf iyo magac iyo madaxtinimo ayaa soo doonatay markaasuu aabaheed wuxuu mar raba idhaaf kuma siinaya gabadhayda wuu diiday sababtoo diin ma lahayn nin dawlad iyo siyaasad iyo maamul ku dhex jiro ahaayo aan diinta markaas culimanimo iyo diin aan lagu tuhmayn markaasuu wuxuu anaa kuu guurinaya ma gabadhii waliid ibn cabdimalik loo diidaad ii guurinaysaa oo magaalada dhan laga yaqaano markaasuu wuxuu yidhi waa yahay sheekhii wuxuu bilaabayba in alxamda lilahi naxmaduhu markuu dhammeeyey iftitaaxii ayuu wuxuu yidhi gabadhaydii waa kuu guuriyey markhaatiyaalla wuu u sameeyey ninkii aad buu u farxay dhinacna wuu naxsan yahay dhinacna wuu faraxsan yahay dhinac wuxuu ka naxsan yahay gabadhii sheekha loo guuriyey shilna ma haysto meel u geeya ma haysto dhinacna wuxuu ku faraxsan yahay gabar wanaagsan buu helay gurigii buu tagay wuu soomanaa afurkii buu guriga tagay markaasuu wuxuu soo qaatay rooti qalalan iyo saliid inuu isku cuno asagoo rootigii iyo saliiddii isku dhuuqaya ayaa albaabka la soo gargaraacay waa waqtigii maghribka waa cashadii suu yidhi waa kuma man yaa albaabka jooga suu yidhi saciid waa saciid wuxuu yidhi waxaa maskaxayda ku soo dhacday intii saciid aan aqaanay magaalada yaa maskaxayda ku soo dhacday talow saciidkan waa kee saciid ibn musayyib weligiiba maskaxayda kuma soo dhicinba sheekhii baa gurigaaga imaanaya oo wuxuu yidhi weligay kuma arag gurigiisa iyo masaajidka meel ka baxsan markaasaa waxaan idhi buu yidhi saciidkee waa saciid ibn musayyib muxuu niyada isleeyahay wala gabadhi waa lagaala noqday nasiib inaan lahayn waan is ogaa albaabku ka furay markaasaan idhi buu yidhi maxaa sheekh saacaddan isu soo lugaysay anaa kuu imaan lahaa markaasuu yidhi maya adaa mudan inaan kuu nimaadno markaasaa idhi buu yidhi maxaa danta saacaddan leedahon kuu gudaa sheekh dantan kuu guda waa maxay dhinacna wuu baqayaa markaasuu yidhi buu yidhi waxaan ogaa inaad doob tahay oo naagtii xaaskii kaa dhimatayoo waxaan rabaa inaan gabadhan kuu guuriyey caawa aan kuu keeno waxaan ka baqay inaad xaaslaan caawa seexatid oo doobnimada aad habeen ku sii waartid fiiri hal habeen inaad sii joogtay adoo dooban ka naxaya waa ninka doobka waa nin iska miskiin ah oo iska dhibaataysan markaasuu yidhi waatana gabadhaada qabso gacantu soo qabtuu yidhi gurigu ii soo geliyey waaba gabar saciid ibn musayyib ka dheer buu yidhi ood yaabaysa markuu guriga soo geliyey ninkii wuxuu yidhi khubuskii iyo saliiddii ayaan wuxuu yidhi faynuuska gadaashiisa ku xaseeyey say u arag oy uga naxin way naxaysaa ilaa hadday aragta ninka guriga waxa laga cunay markaan meeshii ku xaseeyey baan fariisiyey buu yidhi kor buu aaday dariskiisuu u koray dhagax buu ku tuuray dariska albaabkoodii markay soo koreen bay dhaheen maxaa dhacay suu yidhi saciid ibn musayyib baa si kadiisa gabadhiisa iigu guuriyey kaaga darantan hadduu guriga iisoo dhex fariisiyey bal kaalaya say dhaheen ma saciid ibn musayyib baa gabadhiisa kuu guuriyey haa fiir waa diin wuxuu raadina saciid ibn musayyib waa diin
gabadha diin baa loo raadinayaa akhlaaq baa loo raadinayaa markaasuu wuxuu yidhi hooyaday baa maqashay oo waxay tiri 3 beri ilaa aan soo hagaajiyo walla inaad gabadhan la aqal galayn